markaasuu guddigii u xilsaarnaa racfaanka yaa ka fadhiistay markaasaaba waxaa la istaajiyeyba red cardkii iyo ciqaabtii baa laga joojiyay waxaan idinka iloobay markii xeerka u degan hadda ee lagu maamulhayay baa wuxuu lagu heshiiyey haddii ciyaartooy red card la siiyo ciyaarta soo socota kama uu qayb qaadan karo ciyaarta soo socota kama uu qayb qaadan karo marka macnaha ciyaartii Belgium bay ciyaarayeen maanta iyo Mareykanku inuu marka maadaama uu red lagu siiyey ciyaartii tan ka horreysay ee Bosnia ay la ciyaareen tan ciyaarta hadda soo socotay Belgium ciyaarayaan kama uu qayb qaadan karo arrintii marka Donald Trump telefoon wacay ninkii FIFA haystay buu wacay ninkii FIFA haystayna guddigii arrinta xusaanaa buu isna gudbiyey way fadhiisteen anuu amar siiyey ma garan karo لكن way ogtay kulli iska caday waxaan adduunka dhan ka qaylihay waxay ogtay arrin aad qaadaran aad nidaamkii la jabiyay arrintii way ka noqdeen waxay dhaheen ba ninkani dib baan u dhigaynaa wax noocaas oo kala ah ciyaartii uu ka qayb qaatay laakiin sadana maxaa ku dhacay ciyaartii waxaa Mareykan lagaga reeyay afar hal baa lagaga reeyay afar hal ayaa lagaga reeyay qaybtii horeysa radio ABC aan ka dhageysanay aad baa loo xiiseynayay dad badan baa waxay leeyihiin dad baa macnaha dad waxay rabeen Mareykanka in laga reeyo waxyaalaha qaabdarrida ay sameeyeen iyo arrinta maartaqaana waa in khiyaamada iyo awoodda isticmaalayaan iyo waxa ay sameeyeen marka ABC ga sheegaya markii ugu horeysay gool baa laga dhaliyay wax yar kadib dhowr daqiiqo kadib 10 meelahaas kala daqiiqo kadib ayay iyagana gool dhashadeen wala ekaysiin wax yar kadib hadana waxa Belgium ay hadana gool kala dhashay oo halkii ay ka horeysay la soo noqotay aakhirkiisa waxay ku dhamaatay in Mareykanka lagaga badiyay afar hal lagaga badiyay laakiin arrinta xiisada la iyadana waxay tahay ninka arrintan ay ka taagan tahay waa nin madow ah weey wuxuu ka soo jeedaa Ingiriiska laakiin Mareykanka dhalasho Mareykan ayuu haystaa su'aasha meesha ku jirta marka waxay tahay sababta uu ku qaatay dhalashada Mareykanka taas ayaa waxay tahay arrin xiiso leh oo haddana Donald Trump soo galaysa qaabdarrida iyo waxan ku jira calida Donald Trump meel kasta uu ku jiro Donald Trump inuu socotaan mooyee bariyahan dhan waa kan dadka immigrant-iga ah aad uga soo horjeeday waxyaalo badan oo dadka Mareykanka ay ka eegtaan la booday waan saxaya waxyaalaha sharciga Mareykanka ku jira in muddo dheer jiray waxa kamid ah waxa la dhaho visa citizenship visa macnaha waxa weeye haddii ruux ilme hooyadii ayadoo dalka Mareykanka joogto waxay doontaba sharcigeedu ha ahaadee sharciga ku joogto ama iyana ku joogin ama ha ku ahaato xataa transit airport-ka day ku maraysay asaa ilmuhu ku dhasho Mareykanka automatically ilmahaasi wuxuu xaq u leeyahay US citizen xaq u leeyahay marka wiilka arrinta marka Mareykan Donald Trump marka arrimuhu ka soo horjeesay ba kamid ahayd markaasuu dad badan buu waxbuu sameeyey wuu kansalay waxbuu sameeyey arrintii maxkamad bay gaadhay maxkamadda sare High Court of dalka Mareykanka ayaa marka wuxuu yidhi maya arrintani waa arrin ka tirsan sharciga Mareykanka muddo dheer ka jirtay lama taaban karo weli way jirtaa waa caadigeedu ruuxu hadduu ku dhasho Mareykanka soo dooraba ha ugu dhashee sharciga uu helaya lagu go'aamiyey marka wiilkan hadda la isku haysta ee Donald Trump red cardka uu ka celiyey ka kansalay ee kubadda Mareykanka hadda u ciyaarayo waxaa la yiri hooyadii ayaa waxay booqasho ama si ku joogtay baa Mareykanka markaasay rabtay baa uur bayna ahayd waxay rabtay baa inay Mareykanka ku noqoto Ingiriiska markii rabtay ku noqoto ayay waxba si noqday markaasay diyaarad qaada weydii baa diyaarad qaada soo uurka macnaha mar waxaa jira in diyaaradu ogoleen soo 9 bilood miyaha markuu uurku bila u gaaro diyaaradu ma ogola inay qaadaan wuxuu ka yaabaa ruux inuu diyaarada ku dhacay waxna caso kale taa tii baa loo diiday diyaarad qaadiba diiday markaasay waxay ku dhashay baa lidhi Mareykanka arrintii markay ku dhashay ilmihii alkiibu ku dhashay sidii buu xaq ugu yeeshay inuu citizen ku noqdo tii buu marka wiilkii ka faa'iideystay oo uu marka show Mareykanka kubad inuu ciyaari iyo Ingiriiska way ugu soo degelin team buu bahlaha ka soo noolaysto yiri waxaan xaq u leeyahay inaan qaato sharciga Mareykanka sidii baan ku qaatay marka waa irony waxa la dhaho kale weeye oo yar maartana inuu Donald Trump oo ka soo horjeeday dadka sharciga ku qaadanaya inay ku dhasheen kaliya inay ku dhasheen waalidkood meesha inuu socoto ku marayo kale ama si kale bay u joogaan sharci darro ay ku joogeen inuu haddana marka sharciga u jabinayo soo wiilkaasi ayaga ugu ciyaaro waa arrin maartana runtii aad iyo aad loola yaabo weeye oo waxaan ku tusaysaa ninka la Donald Trump inuusan xeer xidhin xeeraha bariya dhaweyta aad looga hadlayo waxaa ka mid ah markii dagaalka uu ku qaaday Iran isagoo la leeyahay Israa'iil baa daba socday wax yar kadib markuu arkay siday u dagaalamaya Iran ayuu wuxuu yiri war waaban yaabay biyo nimankan ma moodin
inay saa u dagaalamaya niman saa u dagaalamaya inay yihiin ma aanan moodaynin buu yiri marka Donald Trump wixiisu waa iska saas weeye oo aan meel looga aada aan la garanayn marka taasna waa midaas ahayd waxaa kaloo iyadana rabaa inaan la wadaago iyadana waxaa ka socota meeting kulan aad u xiiso leh ayaa ka socda Turkiga ka dhacaya waxaa isugu tagaya NATO ayaa ku kulmaysa waqti ay NATO aad iyo aad gilgil u oga jiro oo barasho ka saaran tahay la socdaan dagaalka ka socda Ukraine iyo Russia wuxuu ku sareysay NATO Ukraine ayaa waxaa damacday inay ka qayb noqoto NATO-na waxay tiri waan diyaar baan u nahay arrintaas inaan ka fikirno sida ay dagaal ugu qaaday Russia waxaa kaloo haddana gilgilka weyn oo ku socdana waxaa weeye quwadda iyo ka madax bannaanida Turkiga ayaa bariyahan aad iyo aad u soo badanaya taas ayaa marka iyadana waxay keenaysaa dalal badan oo waliba Israa'iil ay ka mid tahay Israa'iil ay ka tirsan ay leedahay in laga saaro Turkiga NATO in laga saaro leeyahay maadaama uu quwadda militarina iyo xagga siyaasadana uu aad iyo aad Mareykanku Turkiga uu noqonay influential waxaa kaloo dad khaas waliba si aha Turkigu bariyahan wuxuu waday diyaarad buu rabaa inuu samaysto markii loo diiday inay ka qayb qaataan diyaaradaha aadka u sarreeya casriga ee Mareykanku u soo saaro F-35 amaniyiin ayuu wuxuu gada galay inuu asagoo diyaaradta u dhiganto u samaysto laakiinse diyaaradda injinka ay isticmaalayso oo aad u sarreeya oo weli kuwa iyagu ay sameeyaan aan darajadooda ay gaaraynin ayuu wuxuu rabaa Mareykanka in injinka laga galo qolofka iyo waxaan kala dhayaga samaysanaya laakiin injinka in laga galo taas baa marka loo diiday xataa Donald Trump marka weydiistay Erdogan waxaan bariyahan muujinayay Donald Trump inuu ogolaanayo inuu ka gadi injinkaas in loo fasaxo macnaha in laga galo Turkiga Israa'iilna arrintaasi waliba Netanyahu walaac aad u weyn ka muujiyay oo yiri arrinta inaan loo ogolaanin haddii ay loo ogolaado buu yiri sarreynta ay aadka u sarreyso Iran Israa'iil bariga dhexe xagga hawada quwadda cirka ayaa ay Turkigu ku soo dhawaanayaan ma isku mid noqonaya saa darteed ayay yiri arrinta ma aaminsanay in loo ogolaado yiri dhegeystayaal waa Tirisa codka afka Soomaaliga anoo Xamdi Axmed Cali ee la socodsiinaya beenka soo talaadada 8 barka ilaa 9 iyo barka haddana bal waxaan rabaa wax yar oo bareega markaan ka soo noqono inaan waxaad maqlayseen loo dabaaldegayay maalmahan xorriyaddii Soomaaliya waxaa laga yaabaa dad badan inay dhaheen maxaa Xamdi u sheegi layahay xorowgii ama maalinta xorriyadda Soomaaliya ma ahayn arrin aanan dareensanayn bal arrintaas wax ku saabsan ayaan maqaal baan ka diyaariyey Ingiriis ah cod Ingiriis ah waxaan rajeynayaa dadka qaarkood inay ilaa xataa mayaan khaas dadka Melbourne jooga aad uga hadli karin way garanayaan marka dambana suuqa dambana Allah ka dhigaya mar kale waxaan aad u rajeynayaa inaan ka dhigo ku bedelo Soomaaliya isagoo ah bal wax yaroo iyadana aan ka daba dhihi waxa uu ku saabsan yahay arrinta iyadaha dan dhageysi waxaan bareega taxyaro bareega marka ayaa galana kadib ayaan soo noqonayna